kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka siyaasadda oo aad ka dhagaysan doontaan Wardowr Media. guud ahaanba barnaamijka intiisa badan ayaanu waxaanu diiradda ku saaraynaa dagaalkii afka ahaa ee Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeyay oo iminka isku bedelaya gacanka hadalka dib markii Mareykanku uu ku hanjabay in markaasi uu burburin doono doonyaha dagaalka ee waddankaasi Iiraan. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay burburin doonto doonyaha dagaalka ee waddankaasi Iiraan oo ay Mareykanku ay sheegeen in ay dhibaato ay ku hayaan maraakiibtooda dagaalka. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa Twitterkiisa maanta ku soo daabacay in Mareykanku uu burburin doono doonyaha dagaalka ee waddankaasi Iiraan oo uu sheegay in ay markaasi dhibaato iyo dandaansi ay ku hayaan maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan gacanka. qoraalkan hanjabaada ah ee madaxweyne Donald Trump oo bartiisa Twitterka uu maanta uu ku soo daabacay ayaa waxa ay imanaysaa asbuuc kadib markii doonyaha dagaalka ee ciidamada kacaanka waddankaasi Iiraan ee kuwa badda ay markaasi aad ugu soo dhawaadeen maraakiibta Mareykanka ee ku sugan gacanka. hadalkan qoraalka ah ee hanjabaada ee uu bartiisa Twitterka maanta uu ku soo daabacay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ay imanaysaa asbuuc kadib markii doonyo ay leeyihiin ciidamada kacaanka waddankaasi Iiraan gaar ahaan kuwa badda ay aad ugu soo dhawaadeen maraakiibta dagaalka ee waddankaasi Mareykanka ee ku sugan gacanka. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu Twitterkiisa uu ku soo qoray in ciidamada badda ee Mareykanku ay burburin doonaan doonyaha dagaalka ee waddankaasi Iiraan kuwaasi oo uu sheegay in ay dhibaato ay ku hayaan maraakiibta dagaalka ee Mareykanka. waxaan faray ciidamada badda ee waddanka Mareykanka in ay burburiyaan doon kasta oo dagaal oo Iiraan ay leedahay haddii ay ku soo xadgudubto amaba dhibaato ay la soo doonato maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan gacanka, ayuu ku yiri Twitterkiisa madaxweynuhu. goorsii horeysay ilaalada kacaanka ee waddankaasi Iiraan ayaa waxa ay sheegeen in militariga waddankooda ay satellite-kii ugu horeeyay ay markaasi ay u diraan cirka. arrintani ayaa walaac waxa ay ka dhex abuurtay khibrada oo sheegay markaasi in Iiraan ay hawada ay u dirsatay satellite wax u basaasa, taasi oo si lama filaan ay hawada ay ku gelisay iyadoo xaaladda Mareykanka iyo Iiraan ka dhaxaysa ay cirka isku sii shareerayso. diritaankan satellite-ka ee militariga waddankaasi Iiraan ay cirka ay u dirsadeen ayaa durbaba waxa uu walaac u ka dhex abuuray khibrada ku xeel dheer arrimahani, iyagoo sheegay markaasi in teknolojiyadani ay ka caawin karto dalkaasi Iiraan in ay horumariyaan gantaalada blastikada ee markaasi qaaradaha isaga kala gudba. goorsii horeysana ciidamada ilaalada kacaanka ee waddankaasi Iiraan ayaa waxa ay xuseen in ay jirto markaasi xaalad toddobaadkii hore ay kala kulmeen maraakiibta dagaalka Mareykanka ee ku sugan gacanka, balse Iiraan waxa ay ku andacoonaysaa iyadoo aan wax caddayn ah u haynin in dhacdadaasi gardaradeeda uu Mareykanku u lahaa. maraakiibta dagaalka ee Iiraan iyo Mareykanka ayaa waxaa si joogto ah ay ugu kulmaan afaafka hore ee laga galo markaasi gacanka lagu magacaabo Hormuz, halkaasi oo 20% la sheegay in maraakiibta sida saliidda ay maraan. xiisadan u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa cirka isku shareertay tan iyo markii madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskii uu kula jiray waddankaasi Iiraan ee ku saabsanaa dhinaca heshiiska nukliyeerka 2018 isla markaasina uu Mareykanku uu cunaqabatayn u saaray waddankaasi Iiraan. goorsii horeysay oo sanadkan ahna Mareykanku waxa ay diyaaradaha duuliyaha wadin ay ku dileen Qasem Soleimani oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee waddankaasi Iiraan kadib markii ay markaasi ku duqeeyeen diyaarad nooca kaligood iswada ah xilli uu ku sugnaa dalkaasi Ciraaq. Iiraan ayaa arrintani argudasho ka sameysay 8 January ee sanadkan iyadoo garneyl ku tuurtay saldhigga markaasi Ain al-Asad ee ku yaala waddankaasi Ciraaq, halkaasi oo ciidamada Mareykanka ay degan yihiin. ma jirin ciidamo Mareykan ah oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay garneylkaasi, balse in ka badan 100 askari ayaa deeto la sheegay in dhibaato dhinaca maskaxda ah ay soo gaartay. si kastaba ha ahaatee saraakiisha waddanka Iiraan ayaan weli wax faalla ah ka bixin hadalka qoraalka ee hanjabaada ee madaxweyne Trump uu maanta uu soo dhigay bartiisa Twitterka.